Robow 6 bilood kaamil ayaa u buuxsantay haddii si kale loo dhigo waxa uu xiran yahay sanad kale barkiis waxa uu ahaa nin saameyn badan oo musharaxa dad badan ayaa waxay aaminsan yihiin haddii uu tartankii dowlad goboleedka koonfur galbeed uu ka qaybgeli lahaa xilligan inuu noqon lahaa mid ka mid ah madaxweynayaasha Soomaaliya ee dowlad goboleedyada dadka deegaanadaasi u dhashay waxay qabaan inuu guul ay gaari lahaayeen haddii uu hogaamin lahaa qofka laga hadlaya waa Sheekh Mukhtaar Robow Cali Abu Mansuur 6 bil ka hor 13 December waxa laga soo qabtay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay Abu Mansuur ilaa iyo imikana lama sheegin in cadaalad uu helay waxa uu ku jira xabsi ay maamusho hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka soo qabashadiisa waxaa ku dhintay dad badan kuwaas oo ku sugnaa magaalada Baydhabo kuwaas oo qalalaasa sameeyay 6 bil kadib warbaahinta ayaa waxay maalmahan ay baahinayso xogay macluumaad ku saabsan xaaladda Mukhtaar Robow Cali Abu Mansuur iyo sidoo kale xoogagii uu ka tagay ee ku sugan deegaanka Abaal laba dal ayaa lagu waramayaa in iminka ay xoog ay saarayaan xaaladda arrintaasi ku aadan dowladda Mareykanka ayaa dhaqaale xoog leh waxay ku bixisaa ciidamada Abu Mansuur iyo sidoo kale qoyska waxaana la sheegay inuu damacsan yahay in uu la shaqeeyo howlgalka Mareykanka ee ku aadan la dagaalanka al-shabaab maadaama Mukhtaar Robow xog badan uu ka hayo arrimaha argagixisada caalamka sidoo kale dowladda Ingiriiska ayaa wada dadaalo ay ku raadinayso wada shaqeynta Abu Mansuur oo ay u aragto fursad muhiim ah oo wada shaqeyneed safiirka dowladda Ingiriiska ayaa hore u qaabilshay Mukhtaar Robow Cali Abu Mansuur waxaana waxyaabihii ay kala hadleen kamid ahaa wada shaqeyn dhexmarta Robow iyo dowladda Ingiriiska ninka sidaasi loo baadigoobayo ayaa la sheegay dowladda federaalka ee Soomaaliya inaysan ka faa'iideysan labada dowladood ayaa sidoo kale mid kasta waxa ay wadaa dadaal u gaar ah oo ay ku raadinayaan sii deynta Abu Mansuur si ay ugu manad sheegato markii xorriyadda la siiyay kadib